بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا qodobada wararka janalkeena Daily TV ugu door karoon waxaana ka mid noqonaya wasaaradda waxbarashada oo amar dul dhigtay iskuulada iyo jaamacadaha Soomaaliya khilaaf cusub oo ka taagan guddiga doorashooyinka Somaliland goobo ganacsi ay lahaayeen Soomaali oo lagu gubay dalka Koonfur Afrika al-shabaab oo gubay gaari sidee qaad dilayna dadkii saarnaa maxkamadda ICJ oo mar kale dib u dhigtay dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya dowladda Soomaaliya oo ka hadashay go'aanka ay ku dhawaaqday ICJ iyo madaxweynihii hore dowlad goboleedka Galmudug oo dadka reer Galmudug ugu baaqay inay sameeyaan isku tashi iyo isku tanaasul daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena janalka Daily TV ugu door corona intaan u guda galin qodobadaasi oo faahfaahsan marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan janalka subscribe saartaan sidoo kalena gambalaalka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan haatan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa amar dul dhigtay iskuulada iyo jaamacadaha magaalada Muqdisho xilli wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ay wado dadaalo lagu xoojinayo tayada aqoonta waxbarasho ee jaamacadaha iyo dugsiyada Soomaaliya ku yaala ayay wasaaraddu ku dhawaaqday qorshaheeda cusub ee ku wajahan barayaasha Soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faysal Cumar Guuleed ayaa ka qayb galayay munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday dhameystay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda ayaa sheegay in dugsiyada iyo jaamacadaha Soomaaliya aysan wax ka dhigi doonin macallin aan haysan aqoonsiga wasaaradda waxbarashada marka la gaaro bilowga bisha January sanada 2020 wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in hadda wasaaradda ay wado qorshihii lagu diiwaangelin lahaa dhammaan barayaasha wax ka dhiga xarumaha waxbarasho ee Soomaaliya kol hore mas'uuliyiin ka tirsan tacliinta Soomaaliya ayaa ama wasaaradda waxbarashada oo tacliinta u qaabilsan ee Soomaaliya waxa ay ku goodin jireen in ay soo saari doonaan sharciyo lagu xakameynayo macallimiinta tirada badan iyo goobaha waxbarasho ee gudaha magaalada Muqdisho ku soo badanaya sidoo kale wasaaradda ayaa horay u ballan qaaday in ay aasaasi doonto guddi arrimahan u dhabagala isha ku hay doono hadalkan wasiirka ayaa waxa uu qalqal badan ku beeri doonaa ciddaan isku kalsooneen ee baraka ah goobaha waxbarasho ee magaalada Muqdisho khilaaf cusub ayaa ka taagan guddiga doorashooyinka Somaliland khilaaf ayaa xilligan waxa uu ka taagan yahay guddiga doorashooyinka Somaliland iyadoo oo siyaabo kala duwan ay uga kala hadleen madaxweynaha Somaliland iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in ay jirto warqad uu qoray xisbiga mucaaradka Somaliland ayeeshee uu sheegay kala shaandhaynta guddigii doorashada ay xaq u leeyihiin golaha wakiilada Somaliland dhinaca kale gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Faarax ayaa sheegay in cidda kaliya ee sharci ahaan awood u leh in ay kala shaandhayso xubnaha guddiga doorashooyinka ee cusub ay tahay golaha wakiilada waxa uu sheegay in golaha ay soo gaareen 7 xubnood oo guddiga kuwaas oo ay kala keenayaan 2 xubnood ay xaq u leeyihiin golaha guurtida min hal xubin xisbiyada mucaaradka halka madaxweynaha ay ka imaanayaan 3 xubnood sidaasina uu madaxweynaha wareegto ku soo magacaabayo golaha wakiilada ayuu sheegay in ay xaq u leeyihiin in madaxweynaha uu soo gudbiyo golaha wakiilada si ay uga doodaan kadibna cod ugu qaadaan goobo ganacsi ay lahaayeen Soomaali ayaa lagu boobay Koonfur Afrika wararka laga helayo dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay sheegayaan in dalkaasi ay kooxo burcad ah boob ugu geysteen goobo ganacsi oo ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed
goobaha ganacsi oo ay lahaayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee la boobay oo gaaraya ilaa 4 dukaan ayaa waxa ay ku yaalaan tuulada Tiglana oo qiyaastii 50 kiiloomitir u jirta magaalada Desenina sida uu xaqiijiyay ganacsade Axmed Cusmaan oo ka mid ah Soomaalida degan gobolkaasi. sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in tiro dukaamo ah oo ay Itoobiyaan iyo Hindi leeyihiin cagta lagu mariyay boobka socda, isla markaana ay macquul tahay in goobo kale oo hor leh in la boobo. dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa alaabaha ka dhaca weeraro ama mar walba ka dhaca noocan oo kale ah oo ay sameeyaan muwaadiniinta dalkaasi Koonfur Afrika oo qaarkood burcad u badan, waxaana inta ugu badan loo geystaa dadka soo galootiga ee halkaasi ganacsiyada ka sameystay, waxaana inta badan bilooyinkii ugu dambeeyay dhacayay weeraro ka dhana dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku ganacsada. Al-shabaab ayaa gubay gaari siday qaad dilayna dadkii saarnaa, sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya gobolka Hiiraan. Al-shabaab ayaa jidka u galay gaari siday qaad oo marayay wadada u dhaxaysa Buulaburte iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in Al-shabaab ay gubeen gaarigii qaadka siday, sidoo kalena ay dileen 2 ruux oo la sheegay in ay la socdeen gaariga. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in hadda aysan ka hadli karin dhacdadaasi, balse ay wadaan baaritaan iyo dabagal. wadada u dhaxaysa Buulaburde iyo Jalalaqsi ayaa ku jirta go'doon, waxaana Al-shabaab ay dhowr jeer ka fuliyeen weeraro ka dhana ciidanka dowladda iyo sidoo kale gawaarida qaadka qaada. deegaanada ay joogaan Al-shabaab ayaa la ogoleen in la geeyo qaadka, iyadoona inta badan gaadiidka si dhow maaleysiga ah halkaasi ama deegaanada ay Al-shabaab ku dhow yihiin amaba ay dhici karto wadooyinka ay soo geli karaan in soo dhow mashaal ah loo geeyo qaadka iyo sigaarkaba. maxkamadda ICJ ayaa mar kale dib u dhigtay dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya. safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Ambassador Cali Saciid Fiqi ayaa xaqiijiyay in dhageysiga dacwaddii badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya dib loo dhigay. maxkamadda ICJ waxay galabta go'aamisay in dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya laga dhigo Juun 8, 2020, waa bisha 12aad ayaan ka wadaayay 2020, iyadoo go'aankeeda ku cadaysay inay filayso in labada wadan u yimaadaan dhageysiga maxkamadda. go'aankan uu yahay mid kama dambeys ah ee mar dambe dib loo dhigi doonin, ayuu yiri Fiqi. Ambassador Fiqi ayaa sheegay in maxkamaddu ay go'aankaasi qaadatay kadib markii ay eegtay codsigii ka yimid Kenya iyo jawaabtii Soomaaliya ka bixisay. 4 bisha November ee soo socota ayaa lagu waday in la dhageysto dacwadda labada dal, laakiin dowladda Kenya si cad ugu cudur daartay arrintaasi. dowladda Soomaaliyana waxa ay ka hadashay go'aanka ay ku dhawaaqday maxkamadda ICJ. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in dowladdu ogoshahay go'aanka maxkamadda oo noqon doona mid kama dambeys ah. waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ku qanacday go'aanka maxkamadda, isla markaana ay diyaarsan doonto qorshaheeda xilliga loogu talagalay inay la yimaadaan maxkamadda ee ku cad dib u dhigista maanta lagu dhawaaqay. waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horey u diiday go'aanka in dib loo dhigo maxkamadda, laakiinse aysan ka weyneyn garsoorka maxkamadda oo go'aamada maxkamadda leh. maxkamadda ICJ waxa ay galabta maxkamadda ICJ waxa ay go'aamisay in dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya laga dhigo Juun 8, 2020, iyadoona go'aankeeda ku cadaysay in ay filayso in labada wadan u yimaadaan dhageysiga maxkamadda. go'aankana uu yahay mid kama dambeys ah ee mar dambe dib loo dhigi doonin. 4 bisha November ee soo socota
ayaa la filayaa in la dhageysto dacwadda labada dal, laakiinse dowladda Kenya si cad ugu cudur daaratay arrintaasi. Ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee Galmudug ayaa ugu baaqay dadka reer Galmudug in ay isku tashi iyo isku tanaasul ay sameeyaan. madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, isla markaana bedelay ama ka horeeyay madaxweynaha haatan taladiisa si muran ah ku idlaatay oo aan la hubin, Axmed Ducaale Geele Xaaf, kaasoo inta badan marna dowladda wadahadal isku fahma marna ka laabta, ayaa madaxweynihii ka horeeyay ee Guuleed ayaa ugu baaqay shacabka ku nool deegaanada maamulka Galmudug inay ka tashadaan dhismaha maamulka Galmudug. Guuleed ayaa sheegay in xaaladda deegaanada maamulka Galmudug aysan hadda wanaagsaneen maadaama uusan shaqaynaynin maamulkii loo doortay howlaha maamulkaasi. Waxa uu la jeedaa maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo fadhiid iska noqday. shacabka deegaanada maamulka Galmudug ayuu ugu baaqay isku tanaasul iyo isku tashi inay sameeyaan si loo badbaadiyo ayuu yiri Galmudug, isla markaana looga fogaado khilaaf ayuu yiri. Guuleed ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ka dalbaday in ay korjoogto ka noqoto doorashada Galmudug, laakiinse aysan faraha la gelin maadaama maamulka uusan cusbeen. hadalka Guuleed ayaa yimid xilli guddigii farsamada Galmudug ee dowladdu magacaawday ay diideen Ahlusunna wal-Jamaaca. Ahlusunna wal-Jamaaca ayaa ku awood badan magaalada caasimadda rasmiga ah waa maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb. Ahlusunna ayaa waxa ay dhan kasta kaga awood badan tahay mas'uuliyiinta Galmudug ku midaysan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Ahlusunna ayaa waxa ay horay marar badan ay isku khilaafeen hogaamiyaheeda Ahlusunna iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf. Axmed Ducaale ayaa Ahlusunna ku eedeeyay in ay uga baxday heshiis ku aadanaa in ay ka wada heshiiyeen sidii ay hal mid uga soo wada jeesan lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya oo xilligaasi Axmed Ducaale Geele Xaaf uu muran aad u dheer amaba khilaaf uu ka dhaxeeyay. hase yeeshee waxa uu gadaal ka ogaaday isla markaana soo shaacbaxday in dowladda Soomaaliya ay si gooniya ugu heshiisay Ahlusunna, halka markii dambe Axmed Ducaale Geele Xaaf khilaafkaasi ama heshiiskaasi Ahlusunna la gaartay dowladda Soomaaliya uu kaga soo cararay Dhuusamareeb, iyadoona uu sii dhawaa magaalada Gaalkacyo, isla markaana ay mas'uuliyiin degdega dowladda u dirtay Dhuusamareeb, kuwaasi oo markii dambe wadahadal la furay Axmed Ducaale Geele Xaaf. ugu dambeyntiina arrintaasi waxa ay dhalin rabtay qalalaaso siyaasadeed, hase yeeshee waxaa cagta u dhigay oo labada dhinacba xiriiro kala duwan la yeeshay dowladda Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay wadaa dadaalo la xiriira sidii ay u soo saari lahayd hogaamiye ama madaxweyne dowladda ama xaggooda aad ugu dhow, kaasoo inta badan lagu sheego inuu ka tirsan yahay nabad iyo nolol xukuumadda hadda jirta ee Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. daawadayaal guud ahaan warkii aad kala socoteen channelkeena Daynila TV halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa. intaan warkan xiga kulmi doono anagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.